يا إمام الرسل يا سندي الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada channelka u halgan nolosha. wax kasta waa macquul waa hadii aad aaminsan tahay. wax kasta oo ku riyooto ma helaysid kaliya waxaad helaysaa wixii aad shaqaysato. indhahaaga waxaad ku arki kartaa waxa ka horeeya kaliya, laakiin maskaxdaada waxaad ku arki kartaa wax kasta. maalin kasta waa fursad si aad noloshaada wax uga beddesho. haddii aad maanta dhagax tahay, beri diamond waad noqon kartaa. qof kasta dabeecadiisa kula dhaqan si aad u soo jiidato. inta aadan tartan galin ka hor hubi heerka aad joogto. habeen kasta oo mugdi ah waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan. wax kasta oo dhalaalaya ha raacin sababtoo ah dabkuba wuu dhalaalayaa. wax badan akhri si aad wax badan u fahanto. tartanka aad la gasho dadka ka hooseeya hoos ayuu kuu dhigaa, balse tartanka aad la gasho dadka ka sareeya sare ayuu kuu qaadaa. qofkii xumaan kugu sameeya wanaag ugu bedel, wuxuu dareemayaa awooddaada. hantida ugu qaalisan ee haysato waa waqtigaaga. ku bixi waqtigaaga meel ku habboon. noloshu way wajiyo badan tahay, qaabil wajiga kugu soo aada adiga oo dhoola cadaynaya. noloshu way fududahay balse inaga ayaa ka dhigna mid adag. ku qanac waxa aad haysato sababtoo ah qof ayaa jecel inuu helo waxa aad haysato. ifka waxa ugu ladan qof taladiisa Ilaahay u gacan galshay. markasta oo guul gaadho Ilaahay xus oo xasuuso una mahadceli. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.